معها سيدا dadka qaarkood sheegayaan oo dadka raba inaan la xoroobin oo dadka raba cadawayna laga adkaanin ee meelaha ka sheegay waa qabaa'ilo way isku dhacayaan isbaaray dhiganayaan waa laga tagi doonaa sheekadaas ma jirto waxaad muujiseen inay beento tahay soo halkan aadan yabaal ma aha Soomaalidan maxaas iyo kor iyo ka imaanin maxaan ku dhahaa iyo feerfeer soo maxaas away marka isku dhici iyo isbaaradii iyo weysdilayaan iyo waa reer kala duwan iyo wixii away waa beentood inaan waxba ka jirin bay ku tusinaysaa ujeedku waxa weeye in laydan dhaho xoroobina waa propagandada khawaarijta iyo cadawga way in la kala qaybiyo oo dadka deedna la isku diro walaalaha oo la kala xukumo oo la yiraahdo intan ana haysana adna intan ii hayso waxaad muujiseen inay beento tahay waxaad tusteen hadda yartaan oo ayaga hadda si rasmi ay u arki doonaan waxay sheegayaan waxba ka jir waxay yiraahdeen dawladdu hub bay qaybinaysaa dawladdu beelay siinaysaa beel kala dilaysaa annaga hubkan meedin kala misanaga idin qaybin hubkiini waaye lafihiini baad wataan lafihiini baad ku dagaalamaysaan annagu kaliya saraakiishaas oo idin hogaamisa idin ilaalisa idin la shaqaysa idin la seexata ayaa idin joogta ahaan waxaan u malaynayaa hadda sheeg waa la qarine yani maxaan ku dhahaa janaal biixi waad u jeedaan haddana kaneecadaan u dhex seexdaa intii dagaalku socdayna markhaati baa ka tihiin waa idinla joogay waa idinla socday marka sidaasay dawladdu ayay idin hawadinaysaa laakiin waxay sheegayaan waxba kama jiraan inay beento tahayna taariikhda tustay inay beento tahay sidaa darteed waan guulaysanay guushan idinka horseed u ah mar haddaan xorriyad ku fadhidaan mar haddaad karaamadiina ku fadhidaan asay idinkoo keligiina oo aan ajnabi idin dhex joogin oo aan dagaalamaynin oo walaalo ah oo Soomaaliya mar haddaad fadhidaan oo diyaar u ah dalkiina inaad xoreysaan wax walba ayadaa iga qurux badan